loo furan yahay barnaamijkani waana laynoo sii daadihin doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. jaamacad islaami ah aljaamicatu alislaamiya awalu jaamicatin fi Itoobiya oo islaamiya ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan halkeennan ku furanno barakada sheekheena darti ilaahay uu inoogu keenay. dad badan baa horteen isku dayay, ummado hore inaga horreeyay baa jiray, madaxweynayaal iyo ummad badan oo muslimiin ah Itoobiya in badan ka soo shaqayn jirtay. kuwa hadda joogo isku dayay baa jiray, kuwa awood inaga badan sheeganaya iyo qorshayo iyo hanti iyo siyaasad iyo waxyaalo badan sheeganayo isku dayay baa jiray. intii oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala intuuna u sakhirin ayuu inaga ilaahay inoo dhib yareeyay oo ilaahay gacanteena soo geliyay jaamacad islaamiga oo wadanka Itoobiya dhexdiisa ka sharciyowdo oo baarlamaanku ogolaado oo majliskii soo saxiixay oo maanta raasa dhexdeeda inay maanta ka furanta la rajaynayo. allah ina waafajiyay barakada sheekheena inoogu timid. dad badan baa isku daylaysa waaye ilaahaasaan ugu mahadnaqaynaa. alxamdulillahi rabbil caalamiin aan idhaahno. sheekhana cimrigiisa allah dheereeyo, caafimaadkiisana allah ha weyneeyo, silkigiisa iyo sanadkiisa iyo macrifadiisa iyo nuurkiisana allana hay nagu xidhay, ilaahayna yuuna inaga kala goynin baan leenahay. insha allahu tacaala culimadii ka warbixinaysay jaamacadda xafladda iyada iskale warbixinteeda iyo qaabka loo bilaabiyo nidaamka raggeedii baa joogo iyo daba fadhiya. waxaan hadalkayga ku soo ururin ilaahayna aan ka yaabno nicmada iyada ee alla ina siiyey ee jaamacaddaasi ay kow ka tahay ee maanta loo soo xaadiray dhalinyaro iyo waayeel, dumar iyo rag inta ka dhaxlay inaan ka faa'iidaysano. in badan baa la ina yiri reemiyii baa tihiin, in badan baa gaar ahaan dadka xirtay madaarista iyo xalaqaadka akhrista la yiri waxba ma kala garanaysaan. jaamici baan ahay, laabta laynoo garaacay innagoo xalaqaadkeennii haysana oo masaajideennii haysana oo culimadeennii haysana in maanta jaamacaddii ilaa doctoore laga qaadanayay gacanteenna alla soo geliyo oon innagu isu hayno saan u dhisan lahayn, saan u camiran lahayn, saan u shamiri lahayn, saan u wadan lahayn. haddii maanta jaamacado kale oo iska wixii inaga korkoroonaadaan oo ina dhaafaan waa inaga dadanimo xumadeen weeye. inaan markaa u diyaargarowno oon ka faa'iidaysanno oon baranno oo cirooli iyo waayeel intaan isdiiwaan gelinno ku muxuu baataajaal looga bilaabiyo ku qaama zaydun looga bilaabiyo kuwa xogaa sii haystayba aan meesha isugu tagno. ilaan aqooni yaxmalo oo adoo wadaadaba eega lagu bilaabi ma taalle aan kolkaasaan uga faa'iidaysanay falowgeeda gallo. arrintaasaa mujtamacan maanta iyo muslimiinta dhammaantood looga baahan yahay meel kasta oo joognaaba, gaar ahaan dadka xeraha ee daraasada iyo xalaqaadka fadhiyey ee lagu maaragtay oran jiray reebaadiya tihiin iyo kutub baa laqlaqmayn taqaanaanay maxaa idinku kala garanaysaa laynagu oran jiray. marxaladeennii maanta taagan haddaan dayacno dee innaga nacasnimadeenna weeye. haddii kalena ilaahay baa subxaanahu wa tacaala inoo soo xareeyay aan ka faa'iidaysano. waxa weyn baa meesha lagu hayaa oo la isugu yimid maanta inaan jaamacad ka tashanno oo heer jaamacadeed aan joogno alxamdulillahi rabbil caalamiin weeye. laakiin waxaan idiin sheegayaa jaamacadaha adduunkaba xalaqoon baa dhasha. jaamacadaha adduunkeed maqasheen jaamicatul azhar xalaqoon baa dhashay. jaamacadaha adduunka oo dhan xataa kuwa kirisada baadariyadashaa sameeya. marka waxaa weeye waa waddadii la mari jirin baynu haynaa, horta waddo cusub ma aha. laakiin haddii waddo aad qaaddo oo ilaahay wixii hamigaagii uu kuu suurto geliyay ilaahay baa loogu xamdiyaa. alxamdulillahi rabbil caalamiin aan dhahno. wax weyn baa meesha yaalla, nicam weyn buu ilaahay keenay. ictiraaf baa loo baahan yahay, in lagu xamdiyaa loo baahan yahay, in lagu shuhriyaa loo baahan yahay. alxamdulillahi rabbil caalamiin wey. maanta carruurteenna 12aadka haysata ama daarul xadiid ha ka qaadato ama meelo kale ha ka soo qaateene haddii la yidhaahdo carruurta ilmihii isagu awoodaa jaamacad ha raadsado, imise ilmood baa jaamacad raadsan kari lahayd oo intay nool qaadato jaamacad imisaa raadsan kari lahayd? waxaan malinayaa wax badanoo raadsada lama heleen. laakiin waxa weeye ilaahay tanuu inoo keeno roob gurigeennu ku daay ah. dadkii danyartaa dadku danyar buu isaga badan yahay. dad baa xaabo ku nool, dad baa biyo ku nool, dad baa misir ku nool,
dad baa in maqaaxya ku nool dad fara badan oo maxaan ku dhahdaa ehelkoodu noocaa yihiin oo maanta geli kara jaamacaddan yaan meel u doonteen marka alxamdulillah horta waxa weeyaan nicamta kolba ciddii haysa aad uma garatay allah ina garansiiyo allah ina garansiiyo ciddii sabab inoogu noqotayna khayr allah ku jazeeyo ciddii khayr sabab ku noqotay khayr allah ku jazeeyo sida uu sheekhu u sheegay Sheekh Khaliif waxaan isla ognahay macadkan Daarul Hadiis marka laga baxo ama meel kasto la joogo magaalada dadka ku nool iyo deegaankeenanba in ay u doontaan waxbarashadii jaamacadda dalal kale dadka wixii awood u hayay waa u yaraa marka halka waxa ka iman jirtay ilmihii oo soo takharujay jaamacaddii duruuftii uu ku aadi lahaa uu ku tagi lahaa inuu waayo dadna qalbi jab uu ku dhaco hoos u dhac meesha uu ka yimaado oo dhalinyaradii magaalada uu ku biiro oo dadna meesha uu ka bilaabo balwad iyo wax aan wanaagsanayn uu ka bilaabo ama qalbigaba uu ka xumaado oo ashqaas yar oo dadkoodu ay awood u hayaan kaliya ay noqdaan wixii meel kala gaara laakiin maanta kol hadii oo halkan Daarul Hadiis tahay shanqadhi jaamacadduna ay maqlayso waxa weeye nin walba waa uu ka faa'iideysan karaa bidnillaahi albaari marka taana waxaan leenahay nicamta ilaahay uu inoo siyaadiyay ilaahay inoo soo kordhiyay si ilaahay inoogu sii kordhiyay la in shakartum la aziidannakum bi ilaahi leey hadda shukridaan waan idin siyaadina waan idin kordhinaya marka shukru nicamta oo lagu shukriyo tii hore dabar bay u noqono way ku joogi tudamana way ku soo ugaadhinaysa marka si ay tadamana aynu u soo ugaarsanno ilaahay inoo soo siyaadiyo tan horena ay inoogu joogto ilaaha uu san inaga qaadin alxamdulilaahi rabbil caalamiin anu ilaahay aan ugu mahadinay subhanahu wa ta'ala mid kale insha Allah ta'ala waxaan u fahmay culimada hadalkooda saddexdan kuliyadood jaamacaddu waa inta way ku bilaabanaysaa laakiin inaysan ku ekaan doonin waxaan rajaynaynaa in maadi xitaa lagu baran doono jaamacad kastana markuu horeysa hadda kuwana way badan tahay kuwa qaarkood laba kuliyadood bay ku bilowdaan wax ka sii yar bay kuwa qaarkood ku bilowdaan marka insha Allah ta'ala dhalinyarada iyo dadka galaya kulay dhalinyaro u badnaanayaan saan rajaynayay haddaad doonaysaan inaad cilmi barataan meeshii laga baranayay waa halkaan wax laga wadi lahaa say culimadu hore u sheegeen taana waa sidaa ta u dambaysan ku soo gabagabaynaya waxa weeyaan insha Allah ta'ala waxaynu hal xabaynu u baahannahay inaynu fahanno hal xabo waa laga maarmaan qof kasta oo doonaya adduunka inaad aakhiriya adduunka inaad wax noqoto i'tiraaf daat inaad naftaada i'tiraafto inaad wax tahay adigu horta inaad qurux badan tahay inaad aqli badan tahay inaad wax baran karto inaad wax keeni karto inaad wax alifi karto waxaana cilmi la'aantii ma shaqeynayaan mushkiladda in haysato guumaystii ma garanaysan markii dunida muslimka iyo leena baabi'iye leena qabsadeen baa waxa waa leena ugu aaburay inaan dadka ka liidano ilaa inooga bixiyaan dunida saddexaad war anigu dunida saddexaad maxaa adigana dunida koowaad ka dhigay anata saddexaad iga dhigay markaas waxaynu hadara aaminay midabkooda xitaa inuu inaga qurux badan yahay ilaahay qudradiisa bal fiir adiga waa jahilnimada nooca ugu dambaysa nin cadaan hadduu dadku arkaan Afrika markay joogaan wax kale moodaya ilaahay ma beeshu joogo ugu tagtid aad aragtid waxaad moodaysaa adigu ma waa inaad adigu aamintaa inaad wax tahay ilaahay hadduu islaamka dhigo qof muslima tahay adigu inaad kii ugu sareeyay yahay inaad fahamto way soo ilaahay ma dhihin wa antum la'alawn idinka ayaa kuwa saraa ilaahay baa yiri anu ma dhihin haddaadan marka aaminin inaad adigu sidaadaba inaad tahay wax jira waliga wax jira ma noqonayso wax waliba waa waxaad aaminto ee adiga ka dhaadhac aqeedo ma garan aqeedo waxa loo yiri aqeedo waa wax kugu halka kugu guntan oo kugu xidhan oo laga fakin karin haddaad aqeedaysato oo aaminsanaato inaad tahay qof jira oo wax qabsan kara oo laga qurux badnayn laga aqli badnayn wax baran kara oo karti leh oo isagu naftiisa ku kalsoon خلاص عذر كان إنه كبك سنة الله باهين وعذر مرض يضع وحوية مرض كحل المجرى madaxweynaha iyo ku-xigeenka jaamacadda ayaa ka warbixiyay hanaanka diiwaangelinta iyo guud ahaan habsami socodka jaamacadda ee aamin bilowga koobaad ee Rasa University kulanka ayaanu dib dhignay oo waxaanu isla ognahay mashquul badan oo daraasaad jira inuu kulanku hor